أنا وصدح ذا النبي يقول صدح كفتن كوجنا وعدب دبتودنا وعدب. السلام الله عليكم أصحابتي ذا وإني وذا السلام يا دمان ملكة جوتان دل يدبدبه وولكن محدين معلن halka ay daawaneysaan waa Nurdin channel fadlan channelka hadaad ku cusub tahay subscribe noo saar like taada waa codsi fikirkaada hoos noogula wadaag waa maasantiin ku soo dhawaada muuqaal cusub iyo waqti cusub iyo maalin qurux badan maanta waxaa idin wadaa muuqaal xamaasadiis uu wato oo maalmahan qabsaday social media ayaan ka hadli doonaa maantay ku soo dhawaada muuqaalka oo faahfaahsan aad baad u mahadsantihiin sida tixgelinta iyo sharafta ee qadarinta mudan aad uga xirantihiin channelka mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin asxaabteyda sharafta badan soo dhawaada mowduuca aan rabo inaan ka hadlo ama hal iyo laba aan ka yiraahdo waa uu ka xasaasi badan yahay muuqaaladii hore aad igu barateen waa muuqaal runtii sida ay wax u dhaceen iyo sida ay wax u jiraan iyo sida ay wax noqdeen sida ay wax noqon karaan sida loo baahan yahay in la sameeyo ayaan uga hadli doonaa insha Allah muuqaalkana saas ayuu ku saabsan yahay waad ku warheysaan ama waad ogtihiin fiidiyoyaasha hortiina ka muuqda ama aad arkaysaan Hudda Amuun iyo Sayida waxay u qabsadeen si zaid ah baraha bulshada waxaa la leeyahay way isfureen ama way kala tageen haddaba arrimahan ay sameeyeen iyo bulshada Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed falcelintii ay ka sameeyeen in ay isqabin labadooda ay kala tageen ayaan isla fiirin doonaa balse taanan u gudbin taanan daawan fiidiyoga ka hor waxaan rabnaa inaan isla ogaano ma iyaga codkooda miyuu ahaa mise cod kale la dul saaray miyuu ahaa ama iyaga ayaa jilayo maskaxdooda imaankooda ma ka timid muuqaalka ugu saameynta badnaa oo ay sameeyeen aan isla daawano ifur يقول علي واقف فريسة عن لقى بلاد بس بيبرر لها ورجعت وسوعشت لا كل وقت أركتين عد كان هدى أمون يسيجيدا إنسان أهين ويهي عد أو إيجا إسكور سارن حدبا وحان أكلا قاضيا لحان شه أرنكاس وحان أكلا قاضيا لو قضب شخصي أهانتيدا qodobka koowaad wuxuu yahay hadii ay tahay afkooda waxay kamid tahay saddexdii xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam noo sheegay in ay tahay kaftankooda dhab uu yahay dhabtoodana ay tahay dhab أنا وصدح ذا النبي يقول صدح كفتن كوجنا وعدب دبتودنا وعدب إسلانا يواقف فرا كفتن مقش ويفرون خلاص إن أنت ديوان كوسينا كفتن مقش واصل أدوسيس خلاص والعياذ بالله دين توا كبح يقف كدور هذا وكبح وقو والعياذ بالله ومقشين سده هذا الشيء وحي كم الدين وحيابها عن لو كفتمي كرين وان أرجني عد كان إنسان أهين هدى أمون يسيدا سده آد أكتهم أما سده آن كور هينو raha bulshada waxaa qabsaday arinkan xitaa iska dhaafay dadyo fara badan oo isqaba isku soo wada duubay balse iyaga waa ay ka duwan yihiin dadyowaas kale teeda kale waxaan aragnay dadyo fara badan oo muslimiin ah oo isqaba oo guri wada jooga oo xalaal isku ah oo fiidiyowan isku soo duubay waan aragnay aan siinayo ayaa waxay tahay Hudda Amuun iyo Sayida in ay sheekh ay weydiyaan oo ay la xiriiraan oo arinkan iyaga ay sameeyeen ay u soo bandhigaan oo ay dhahaan arinkaana sameeynay sheekhow
diinta islaamka maxay ka qabtaa. ilaahay wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. waxaan ugala talin lahaa aan dhihi lahaa in ay sheekh ay weydiiyaan oo sida ay wax u dhaceen, sida ay wax u jiraan ay u soo bandhigaan, ay u sheegaan ayaan ka codsan lahaa. marka muhiimadda ayaa waxay tahay anaga xaggeena waxaa nagala gudboon si walaaltinimo ah, si galgacayl ah, si nasteexe ah in aan wax idinka sheegno ayaa muhiimadeen ah. marka waxaan idin leeyahay arrintan ha laga fadhiisan, ha la raadiyo sheekh, arrintan ha loo soo bandhigo. markaas sheekhaas idin yidhaahdo sameeya insha allah. teeda kale qofka markaad wax u sheegayso ama waxyaabo qaldan ama isaga uu sameynayo oo qaldan haddaad ku aragto, sida hadda videoga noocan oo kale ah, haddaad aragto qofka si nasteexiyan ayaa wax looga sheegaa. waad ogtihiin rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam markii loo soo dirayay gaaladii qurayshta u waaweyneed, markii loo soo dirayay si nasteexiyan ayaa dadka wax ugu sheegaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala markii nabillaahi muuse calayhi salaam u soo dirayay fircoon, si nasteexe ah ayaa dadka wax ugu sheegaya, si nasteexe ah ayaa dadka wax ugu sheegaya. waxaan arkay dadyo fara badan ama qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed oo hudda-amuun si qaldan wax ugu sheegayay ayaan arkayay. marka waxaa fiican qofka walaalkaaga ah haddaa wax u sheegayso ma lagu qayliyo ee si naxariisa, si nasteexa ayaa wax looga sheegaa qofka. balse sababta ay jirto ayaa waxay tahay ma dhihi karno, waayo cod idinka aan lahayn ayaa isku soo wada duubteen. hal mid kale ayaa jirto, hadda ma idin dhihi karno waxba kama jiraan, yacni waxba kama jiro. teeda kale ma idin dhihi karni waxbaa ka jira, labaduba ma idin dhihi karni, waayo ilmo uma lihin anaga. waddanka idinka aada joogtaan sheekh lagama weynaayo jerman. waxaad samaynaysiin sheekh raadiya, xitaa hadduusan joogin inta taleefona laga heli karaa, qof kalea la weydiin karaa, ama sheekh ah ama qof kale ama soomaali xitaa waa lasoo weydiin karaa. hala weydiiyo ayaa idin dhihi lahaa. waxaan tala oo xaggayga aniga aan siin lahaa hudda-amuun iyo saygeeda, intaas ayaa igaga filan. waxaan rabaa marka soomaali maxamed inaan u soo jeesto. waxaa idin sheegayaa wax walba oo idinka aad aragtaan waxaad isku dayeysaan in aad challenge garaysaan, in aad isku daydaan in aad samaysaan, balse la idinkama baahna in aad wax walba aad challenge garaysaan. waxyaabaha qaar oo idinka aad samaynaysaan ama isku challenge garaynaysaan, yani waxyaabo yaryar oo waxaa jiro adi xaggaaga aad ugu yar, balse diinta xaggeeda markii loo fiiron ay yihiin wax weyn. aniga xaggayga waxaan idinla jeclahay wax walba idinka aad samaynaysaan inta aadan samaynin ka hor ka fiirsada ayaa idin dhihi lahaa. waayo waxyaabaha qaar oo laisku challenge garaynayo oo idinka aad samaynaysaan ayaa noqon kara mid diinta ka baxsan. isla mar ahaantaasoo adiga wax samaynayso, isla mar ahaantaas ha fiirinin fiyuuskaada ee waxaad fiirisaa maxay tahay. waa inaad isweydiisaa intaadan samaynin ka hor ka fiirso. soomaali maxamede waan is ognahay in aan wax walbo aan rabno inaan samayno, balse ma ahan waxyaabaha qaar oo diinta aysan ogoleyn in aan samayno. teeda kale ka fiirso viewskaada iyo like-taada iyo social media intaada viewska wax ka raadinayso, diinta ilaali. teeda kale haddaan fiirino, maadaama annaga aan nahay dad muslim ah, waxaa fiican mar walba waxa adiga aad samaynayso
waa inaad ka fiirsataa oo aad isdhahdaa maxaa kuga imaan karaa, maxaa samaynaysa oo khalad miya. isla mar ahaantaada fiuskaada ha fiirinin ee waxaad isdhahdaa maxaa kuga imaan karo haddaad samayso. isla mar ahaantaasi shayga annaga aan samaynayno haddaan fiirino ummadda annaga nagu xiran ugu yaraan 400 mise 500 mise 700 qof ayaa kugu xiran. intaas 700 ama 500 ama 400 oo qof kugu xiran intaad fiirinayso 500 ama 400 intaad fiirinayso, haddii allagii raxmaanka ahaa adig ku abuurtay oo koonkan ku keensaday oo quruxdan iyo jamaalkan kuu sameeyey hadaad ku hadgudubto ka waran. isla mar ahaantaasina fiuskaada bes aad fiirisid. yaa allah, hadalkayga u dambeeyay ayaa wuxuu yahay mar wax walba oo idinka aad samaynaysaan inta aadan samaynin ka hor ka fiirsada. isla mar ahaantaas hadalka aad ku hadlayso u yeel taftiro. markaa asxaabteyda barnaamijkii aan uga hadlayay walaasheen Huda Amuun iyo saygeeda taas ayaan ku akaynaynaa. dul istaagii annaga aan dul istaagnay, haddii wax qaldan oo xaggeena aad ku arag yani wixii qaldan ilaahay ma qaldamo waayo, bani aadamka wuu qaldamaa. wixii aan ka soo hadlayay haddaa wax qalada aad u aragtaan waa idinka raaligelinayaa. bulshaweynta Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa janalkayga haddaad ku cusub tahay walaal subscribe iyo saar si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyaasha xiga insha allah. like-taadana waa codsi, fikirkaada hoos noogula wadaag. waa mahadsantihiin. muuqaalkan xiga intaan ku wada kulmayno idinkaga tegayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.